gudaha Somaliland mudane cali maxamed warana cadde oo ka qayb galay shir balaaran oo lagu qabtay magaalada Burco bisha 14keedii sanada 2014 oo ujeedadiisu ahayd xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa waxa kala qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaasha ciidamada booliska laanta sodaalka ilaalada xeebaha madax dhaqameedka salaadiinta culimo awdiinta dhalinyarada ururada bulshada kulankaasi ayaa mid daba socday kii lagu qabtay magaalada Boorama kaasoo ay ka qayb galeen kulankaasi gobolada Maroodijeex Salal iyo Awdal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland mudane cali maxamed warana cadde ayaa daba faahfaahin ka bixiyay go'aamadii ka soo baxay shirkaasi lagu qabtay magaalada Burco maalmihii la soo dhaafay falanqayn dheer ka bacdi oo runtii shirka la isugu yimid uqaasha salaadiinta ururada bulshada oo laga soo wada xulay dhammaan gobolada waxa ka soo baxay go'aamo wax ku oola kadib markii dood dheer laga galay qodobada la isla qaatay in dalkan laga fuliyo si ammaanka loo adkeeyo dhidibka loogu aaso waxa kamid ah qodobka koowaad in dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in diya la kala qaato la mariyo qisaasta sharciga ah laba in la fuliyo go'aamada garsoorka iyo maxkamadaha ee fulinta sugaya ee taagan maanta saddex in aan garab la siin dambiilaha wax dila ee caadaystay inuu markuu waxyeelayo qof islaama dabeedna uu beel dabada geliyo ayaa waxa lagu heshiiyay inaan dambiilaha wax gacan oo la siiyay jirin lana qarinin qodobka kale in cid kasta oo hub kala hortimaada ciidamada amniga iyagoo fulinaya hawlgal sharci ah ee ku waxyeelooba ama ku dhinta inaanu haba yaraatee wax magdhow ah aanu lahayn cid loo raacayaana aanay jirin waxyeelada soo gaadhay dambiilaha hubaysan shan in ciddii gacan siisa gacan ku dhiglaha ama dambiilaha iyo cid kasta oo sharciga ka hortimaada uu la mid yahay ruuxii faldambiyeedka geystay shantaa qodob oo shantii la isku raacay mudane cali maxamed warana cadde wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa sidoo kale halkaasi ka akhriyay soo jeedintii ka qaybgalayaasha shirkaasi waxa raaca soo jeedin ay soo jeediyeen madaxda dhaqanka iyo ka qaybgalayaashu ee shirweynaha ka qayb galay waxaan laga gaaray go'aamada hoos ku soo qoran iyagana in la dardar geliyo sugidda ammaanka iyo wax qabadka iyo baahiyaha ka jira gobolada bari sool iyo sanaag laba in la tayeeyo tababarna la siiyo ciidamada amniga si loo helo cadaalad sugan iyo ciidan tayo leh saddex in lagu fuliyo gacan ku dhiglayaasha ku xukuman dilka ee ku xidhan jeelasha ee arrimahoodu dhammaadeen taasoo wax weyn ka taraysa amniga oo ilaahay yidhi inna fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab taana waxaa la soo jeediyay la isla qaatay in ninkii dambiilaha ah ee dadkii muxuu ahaayay uu wax ka dilay ama ehelkii dambiiluhu uu ay ku heshiiyeen waa halkeeda kiisa lagu heshiiyay inaan mag laga qaadan ee la dilo in aanu noqon nin muxuu ahaayay iskaga jira xabsiyada ee uu qisaastii ilaahay lagu qisaaso uu jideeyay ayaa taana la isla qaatay waxaan runtii halkan aan jeclaan uga soo jeediyo mahad ballaaran iyo bogaadin bulshada reer Somaliland waxgarad iyo cuqaal salaadiin ganacsato dhammaantood sida qiimaha badan ee ay go'aamadan noola